hankii qaranka rumoobay maanta waa maalin taariikhiya oo ku suntanaan doonta horumarka qaaradda dunida inteeda kale ka dib dhacday ee Afrika mandaqada aynu ku noolnahay ee geeska Afrika iyo dhammaan geyiga ay degto ummadda Soomaaliyeed maanta waxa si rasmi ah loo daafuray oo xariga looga jaray wajigii koowaad ee dhismaha dekadda Berbera halkaas oo laga dhisay dekad caalamiya oo ay yaabayso oo markaad aragto ay maskaxdaada ku soo dhacayso tolow mati Hong Kong ba ma Singapore ba ma Jabal Ali Dubai ba waa u jeedaan waxaan u malaynayaa inaad la maqsuudi doontaan ku maqsuudi doontaan isla markaana ma sha Allah dhamaantiin wada oran doontaan markaan dekada arkay oo daawaday ilaahay baa igu og waajid booday jamaal aragaas ay qaaday markaas waxaan idhi way in culayow yaa maanta ku dhex istaajiya jamhuuriyaddii barakaysnayd adamaashaadka kala qayb gashay oo xariga dekada laga jarayo marag u ahaantay saa inta u nooshahay oo dhan taariikhda cajiibka ah uga sheekayso waxa ka codsanayaa muuqaalkan inaad sii share gareyso haddii dhiig Soomaaliyeed kugu jiro oo aadan xaasid ahayn inaad like saarto iyo inaad commentiga soo badiso oo aragtidaada aad ku cabirto waxaan idhi maanta markaan arkay dekada dadkaasi dhisteen shacniga intee la eg tahay baaxadda oo la yiri haddana waa wajigii koowaad baa waxaan idhi war wajiga labaad marka lagu daro talow macdan baa la gaarsiin doonaa baaxadeedu intee la ekaan doontaa dadkaasi waa dad tashaday waxa kamid ahaa dadka ugu badan ee Soomaaliland halka ka dhaliila oo dhaha markasta war Soomaali ma kala go'i kartay Soomaali wax la qaybsada laakiin runtii xaqiiqada dhabta ah ogaaday waxaan jeclaan lahaa beesha caalamku sida inuu culay isu bedelay oo xaqiiqada uu arkay inay iyaduna u aragto mararka qaarkood waxaan dhahaa war beesha caalamku tolo macaweer ba ma hal il bay wax ka aragtaa hal il ya oo dawladda Soomaaliya kaliya aragtaa maxay horumarka nabadda dimuqraadiyadda Somaliland taala u arki weeyday waa huba haday arki lahaayeen sida odaygii inuu culayaha isu bedelay inay isu bedeli lahaayeen oo i'tiraafka jag ku siin lahaayeen waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ay dadkaasi saas u tashadeen dekada arkaysaan bay dhisteen ilaahay baan idinku dhaarshay maxaa farq loo sii haystaa maxaa looga dabalaalaada madabka Soomaaliya koonfurteedii ku shidan baa la rabaa inay ku soo dhacaan oo ku gubtaan maxaa la doonayaa Soomaaliya afar dekedood bay lahayd Boosaaso Muqdisho Kismaayo saddexdii kale maanta meeyay Boosaaso waxa lagu la heshiiyay DP World shirkadda maanta dhistay Berbera gaalkii cadda marka loo soo diray oo maamulaha ka noqon lahaa uu rabo naqshadii inuu saa u jeexo oo uu dekada dhiso balaariyo halkaas subax madow laga toogtay carabti waa carareen meel aan nafsadaadii ku aamini weyday tashiilkaagana kuma aamini karto dekadii sidii bay u haawanaysaa u qaawantahay tiig Muqdisho 10 sano Turki baa degan hal wiish kuma soo kordhin laba dhagax isma saarin lacagtana barkiisu qaataa muxuu Turkigu ku kordhiyay baa is oranaysaa tan la garay DP World waa saa u camirtay oo 3 sano gudahood ku dhistay bal Turkigu dekada Muqdisho muxuu ku soo kordhiyay wuxuu ku soo kordhiyay lacagtii la kala xadi jiray inuu intuu kombiyuutar u keeno u xisaabiyo oo halkaas sheer ka qaato intaas uu dekada Muqdisho ku soo kordhiyay waagi hore lacagta dekada Muqdisho laga qabto khasnada dawladda ma tagi jirin xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo kan madaxweynaha loo kala qaybin jiray laalush baa lagu bixin jiray Turkigu hadda waa u xisaabiyaa wixiisana waa ka goostaa xoogaagoodana wuxuu ugu ridaa bankiga dhexe intaas uu kula shuraakoobay dekada Kismaayo Kenyaati waa haysta oo marna dhuxusha ka dhoofiya marna sokor kotorobaan kala soo diga Berbera waa taa indhaha idin macalina dadka ma la simi karaa ma la isku hayn karaa maya Somaliland waxaan leenahay waa walaalaheen haday maanta i'tiraaf helaan haday inta ka dhiman ay u dhamaato waa si barwaaqoobi doonaan inaga baa ku baxsanayna iyagu meel ka tagi maayaan dalku ma guurayo dadkuna ka hajiri maayo laakiin horumarka baa si kordhaya maanta dadkaasi horumarka waxay gaareen oo dekada dhisteen
ujeedaan iyagoo aan ictiraaf haysan iyagoo dunida aan la macaamilayn iyagoo Soomaaliya ay farqa haysato oo xafiiskii ay galaanba Soomaaliya ay cabasho ka daba dirayso madaxdii casunta iyo dalkii casumaba Soomaaliya ay cabaaraynayso bal kuwaas oo ictiraaf haysta oo dunida la macaamilaya oo IMF deyn ka qaadan karaya oo World Bank mashaariic u dhisayo oo carabta intay tagaan maalina amiirka qada xafiiskiisa galaan maalina boqorka Sacuudiga xafiiskiisa galaan saa u soo gacan marinaya maxay dhisan lahaayeen maanta Somaliland boorba ma lahaatee bowdalaami bay ahaan lahayd marka dadkaas ictiraafka u baahan iyaga ka faa'iideysanaya waxa jeclaan lahaa oo wallahi oo ku talin lahaa in la siiyo ictiraafka maanta shalay markay labada gobol israacayeen oo waqooyi iyo koonfur oo midoobayeen Somaliland waxa timi iyadoo ictiraafka haysto oo dunidu ay ictiraafsan tahay oo dal madax banaan loo aqoonsan yahay timi dad Soomaaliyeed oo walaalahooda oo diyaarsan oo xalaal ah oo dawladda ay u dhisan tahay oo waxa ay ku darsan karaan baa u muuqday kuwii bay u yimaadeen waa la midoobeen maanta haday ictiraaf helaan oo dawlad noqdaan oo bari Soomaali is hagaajiso maanta waxa u muuqda dad ay wax ku darsan karin oo Soomaali ay bari is hagaajiso oo dad maxaa ku raahday dunida la tartamaya ay meesha ka soo baxaan sidii ay shalay ugu yimaadeen waxaan hubaa inay ugu imanayaan oo ay ugu soo ololayaan barkay waa walaalkood way meel ka tagi mayaan laakiin hadda dabka halka ka shidan hadaan la lahayn ya kaalay adduunyada la ku wada cadaabay Soomaaliland ay noo kaalaya oo raranka aan ku fadhino nugula fariista wax kale oo dadka lugaha loo haysto anigu ma garan karo maanta ilaahay baan idinku dhaashay baarlamaanka Soomaaliya 2018 bishii saddexaad waxay meel mariyeen qaraar ay DP World berbera kaga eriyayaan haddii maalintii qaraarkaasi uu fuli lahaa oo DP World iyo imaaraadku ay u hoggaansamin lahaayeen maanta dekada ma hayn lahayn maalintii waxay lahaayeen guul taariikhi la gaaray guul taariikhi baa la gaaray maanta dekada ma lahayn lahaa qaraarka waxa loo ansixinayay oo loo digiyo dam lahaa iyadoo dekada Muqdisho Turki u haysto waxay xaasidnimo yay dhismin alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waa dhisantay wataas dadkii qaraarka horboodayay waxaan leenahay in habaari meeno in caayi meeno in canjarfayn meeno laakiinse maanta xaq rabbi badulnimo inay taala maxaa ku hadlaysaa marka dadka Soomaaliyeed ee Somaliland degan waa dad tashanaya waa dad tashaday waa dad maanta dalkoodii inay dhistaan u jeeda oo dhisanaya war dadka farqa haloo sidaayo bal waa kan baarlamaanka Soomaaliya maalintii ay qaraarka akhriyayeen bal ila dhageysto waa kan gudoomiye ku-xigeenka labaad oo baarlamaanka Mahad Cawad oo qaraarkii baarlamaanku soo saaray akhriyaya shirkadda Dubai Port World DP World oo si bareer ah ugu xadgudubtay siyaadada madax banaanida midnimada iyo badqabka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa saadaradeed shirkaddan laga mamnuucay dalka qaraarkii maalinta baarlamaanku meel mariyay hadduu dhaqan gali lahaa maanta dekada lama hayeen waxay ahaan lahayd xaasidnimo tan ugu xun bay ahaan lahayd waxaan leenahay Mahad iyo kuwii la midka ah ee mooshinka horboodayay ee ansixiyay sakiin la qamaanta leenahay Somaliland waa dhaqaaqday Somaliland haday shacab tahay haday dawlad tahay waa u hambalyeynaya waa bogaadinaya jidkii horumarka gacanta haysaan jidkii horumarka baa ku joogtaan ha ka soo jeesanina halka ku socotaan ku socda baan idin leenahay adduunyada la macaamilo wax la qaybsada inta in ka dhimanna ilaahay baa wax ictiraafa ilaahay wayna ictiraafsan yahay dadka nool calan kale halka jooga lala macaamilayaatiin inta in ka dhimanna ilaahay idinkii waa heleysaan xaq waxa la yiri si kasto afka loo qabto feeruhu ka dilaaca maalin dhow isaga feeraha ka dilaaci doona kuwa kale intay isa haystaan dam baa inuu horumaraysaa intay isjiidayaan baa doorasho xor ah oo xalaal qabateen intay dekada xoogaaga yaale kala xadayaan baa idinku taa dhisateen intii ay qalinkii ay iyagu kiyaatiga wax ugu saxiixayeen baa horumarka idinka gaaraysaa maalintii Musabbixi la doortay dad baa waxay lahaayeen Soomaaliyeed Somaliland maanta dib u dhacday
waxay doorteen nin jabhada oo intuu noolaa qori uun afka hayay war soo ka dalkii dhisay Soomaaliya idinku waxa ku faanayseen professoro wiilal Mareykan ka yimi qaramada midoobay u soo shaqeeyay inaad doorteen maxaa ka hesheen halkii aad taagneedeen shalay ba maanta taagantiin inaad talaabadii u qaadaan maaha mid hore uma qaadin dekad biidin dhisin airport biidin dhisin wadiidin dhisin maxaa maanta ku faanaysaa marka waxa weeye dadkii professorada idin ahaa ku faanayseen waka adduunka aqoonta qofka ku jirta la barayo shakhsiyadda ka qaalisan shakhsiyadda qof aan shakhsiyad lahayn dadnimo lahayn cilmi yar oo halka loo wax xaqiiqay oo theory waxba ma taro waka kuwii wax la baray qalinka loo dhiibay kuwa dekadii badiyo kuwa ibsiday Somaliland maalintii dekada la kala saxiixayay Soomaalidu waxay dacaayad suuqa u galiyeen in dekada ay Ethiopia ay ka tahay shuraako waa ku ceebeynayeen anjarafay uga dhigayeen ayaan darooyinka dhacay wax kamid ahayd in ra'iisul wasaare Ethiopia markuu Muqdisho tagay oo 4 dekedood dawladda Soomaaliya ka soo saxiixday balika waxa ka warrama marka war Somaliland tashate yaan dilini cilni horumarka ku socda guuliyo gobonimo idin leena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.